ayaa xaqiijinaysa in ciidamo ka mid ah kuwa ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ay bar control oo ku taala gidaarada madaxtooyada laga ilaaliyo ama rugaha control ee madaxtooyada laga ilaaliyo ay ka celiyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo hadda ah ganacsado ku nool magaalada Muqdisho. muddo dood socotay kadib ayaa waxay arrintaasi sababtay in madaxweynihii hore ee dalka uu dib ugu laabto halkii uu ka yimid kadib markii loo diiday in halkaasi uu maro. ciidamada ayaa weydiiyay aqoonsi waxaanu isu sheegay inuu yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya kadibna waa ay diideen in aqoonsi la'aan uu gudbo. arrintaas waxay sababtay in la gaarsiiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa u yeeray madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed wuxuuna ku qaabilay madaxtooyada Soomaaliya. labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrintii dhacday. Maxamed Cabdullaahi ayaa la sheegay inuu ka raali geliyay Cali Mahdi Maxamed xadgudub uu sheegay inay u geysteen ciidamada qaranka. waxaase kadib dood loo galay sidii xal loogu heli lahaa in wadooyinka magaalada uu dib ku maro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. arrintaasi ayaa sidoo kale waxay sababtay dood muddo dhex martay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. si sax ah looma oga waxa ay dooda ka bilaabatay laakiin warar lagu kalsoon ayaa sheegaya siiqada hadalka loo dhigay ama luqadda uu ku hadlay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ee ahayd in aqoonsi wadooyinka Muqdisho uu ku maro loo sameyn doono Cali Mahdi oo ka xumaaday kadibna uu ka baxay madaxtooyada. waxaa maanta la kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. waxaana Cali Mahdi ay kala hadleen arrintaas weli ma jirto xal dhab ah oo laga gaaray. waxaase la sheegayaa in ay isoo fahmi waayeen. waxa ugu weynee la isku haysta ayaa ah in Cali Mahdi oo dalbanayo magaalada Muqdisho inuu maro aqoonsi la'aan halka dawladuna ay doonayso in loo sameeyo aqoonsi oo magaalada ku joogo ama ID card waxa la yiraahdo. magaalada Muqdisho ayaa xiran inta ugu badan wadooyinka waxaana qof walba oo halka marayo qaarka ugu muhiimsan ay ku maraan wadooyinka aqoonsiyo halka kuwa kalena iyagoo haysta ayaamniyo marinba.